السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعبد الناصر أو مانتنا سيدي عادة إنه هاي halka kan idinka soo gudbin doona barnaamijyadeeni taxanaha ahaa ee ku saabsanaa arrimaha kala duwan. maanta insha Allahu tacaala waxa aan idinla qaadan doonaa ama aan idin soo gudbin doonaa qiso ka mid ah qisooyinka aadka u la yaab badan oo magaceeda la yiraahdo saddexdii Cabdilaahi. qisada magaceeda waxa la yiraahdaa saddexdii Cabdilaahi ayaan maanta qisadooda bal aan idinla wadaagi doonaa. waxaa jirtay qabiilo ka mid ah qabaa'ilka carabta oo loo yaqaano reer bani caraafa. qabiiladan la yiraahdo reer bani caraafa sida la sheegay waxa loogu bixiyay magaca bani caraafa waxa ay ahaayeen qabiilo aad u cilmi iyo caqliba badan. waxay ahaayeen qabiilo ilaahay cilmiga iyo caqliga uu ku manaystay oo aad u garasho iyo aqoon badan. waxay ahaayeen qabiilo dadku ay aad iyo aad u majeertaan ama ay la yaabaan fahmadooda iyo sida ay wax kasta oo yimaada iyagu ay markaba uga jawaabaan ama ay u gartaan ama arrin kasta oo muran gelisa ummadda ama la isku khilaafo sida ay markaba u xaliyaan ee ay u helaan furihii arrintaa. qabiilada la yiraahdo reer bani caraafa sida la soo warinayo waxa ka dhashay nin sheekha ama aad iyo aad u da'weyn oo lagu qiyaasay da'diisu in ay u dhaxayso 80 ilaa 90 jir. ninkaasi wuxuu ahaa ninka arrimuhu marka ay isgalaan ama xaajooyinku ay murgaan ay kula tibadaan ama ay ula tagto ummaddu ee la yiraahdo hadday tahay dhaqanka iyo hadday tahay diintaba labadaba wuxuu u lahaa aqoon fiican oo uu ilaahay siiyey. waxaanu ahaa nin da'a oo aad iyo aad u waaya araga. wuxuu lahaa ninkaasi 3 wiil. saddexdaba wuxuu u bixiyay magacyadooda Cabdilaahi. saddexda Cabdilaahi buu u bixiyay. isaga ya Allah unba isla og sababta uu saddexdaba Cabdilaahi ugu bixiyay. waxa la yiri maalin maalmaha kamida ayaa naf waliba waxa weeye kullu nafsin daa'iqatul maut. naf waliba geeri bay leedahay oo geeridu waa wax sugaya qof walba oo Soomaalidu waxay tiraahdaa hadii gabow ku daayo geeri baan ku daynayn, hadii geeri ku daysana gabow baan ku daynayn. labadaasi waa labo mar walba ku taagan. gabow iyo geeri waa labada shay ee aadamuhu uu mar walba waxa weeye uu la kulmi doono. geeridiisii baa timid ninkii ama wadkii baa galay. kadib ka hor intii aanu geeriyoonin wadaadkii wuxuu qoray dardaaranka wuxuu ku qoray warqad isaga oo yiri saddexda Cabdilaahi wuu dhaxlayaa, Cabdilaahina ima dhaxlayo, Cabdilaahina wuu dhaxlayaa. wuxuu ku cadeeyay halka laba Cabdilaahi inay dhaxalkiisa leeyihiin oo ay caruurtiisii yihiin. hal Cabdilaahina aanu dhaxalkiisa haba yaraatee wax yar iyo wax weyn toona uusan ku lahayn. odaygii markii uu geeriyooday ee ay saddexdii wiil ee uu dhalayna ay aabahood duugeen ama aaseen ayaa waxa ay soo qaateen oo ay heleen warqadii dardaaranka. kadib markay akhriyeen waxa ka dhacay meeshii wax aan la arag oo aan la maqal. fajac ama kaag iyo la yaab baa ka dhacay meeshii. cid waliba dhabanka iyo gacanta ayay isa saartay. saddexdii nin ilaahay mid walba wuxuu u keenay wax ka nixiya oo waxa weeye wadnihiisa ayaa si xoog ah u shaqeeyay. saddexdii Cabdilaahi mid waliba wuxuu isu qaatay Cabdilaahiga aan dhaxalka waxba ku lahayn inuu isaga yahay. haddaba waxay ahaayeen maadaama ay qoomkani ahaayeen qoom aad iyo aad aqoonta lagu tuhmo oo caqli badnaan iyo cilmi badnaan lagu majeerto waxay isla garteen saddexdii wiil iyagoon isdilin, iyagoon dagaalamin, iyagoo aan buuq iyo balaayo kala samaynin, iyagoon rabshad iyo maxaan ku dhahday roor samaynin. waxay sameeyeen waxay yiraahdeen markay wada hadleen walaalayaal maadaama uu aabaheen warqadaa qoray waxaynu u tagaynaa qaadiga magaalada ay naga fog degan ee wadankan aynu degannahay ugu cilmiga badan ama ugu qaadisanay aqoonta lagu kala xukumo dadka uu ilaahay u dib yareeyay ee ugu aqoonta fiican. ma idinla tahay inaynu u tagna qaadiga? saddexdoodiiba sidii bay isku waafaqeen. kadibna waa ay israaceen. sahaydii iyo saadkii bay qaateen. dhabaday cagta saareen. waxay sii socdaanba waxa dhexda kaga sii dhacay oo ay kula kulmeen nin baadidoona oo raadinaya awr geela oo ka lumay. awr ayuu raadinayay ninkaasi ka lumay. dabeetana wuxuu ku yiri isnabdaadin dabadeed war niman yahow awr ma aragteen?
dabeetana cabdilaahigii koobaad baa wuxuu ku yidhi ma ila awrkaagu haa buu yidhi cabdilaahigii labaadna wuxuu yidhi awrkaagu ma dabala nacam buu yidhi cabdilaahigii saddexaadna wuxuu yidhi awrkaagu lugma ka dhutinaayey wuxuu yidhi sidaa aad u sheegtay weeye awrkaygii halkuu joogaa dee ii sheega buu yidhi adeerayaal ilaahay khayr iyo baraka haydi siiye awrkaa aad sheegteen weeye waan idii ducaynayaa ii sheega halkuu jooga awrkaygii dabeetana waxay ku yidhahdeen annagu awrkaagii ma aanaan arag haba yaraatee iliya baaltoona ma aanaan saarin ilaahay ninkii yaabyo ama kaag buu u keenay waar awrkaygii waad aragteene ma awrka aad calaamadihiisii oo dhan sheegteen baad leedihiin maanaan arag arrintaasi wax dhici kara maaha waxaan qaadan kara maaha waa la murmay waa la yooyootamay dabeetana wuxuu ku yidhi ninkii odayga ahaa ee baadidoonka ahaa saddexdii cabdilaahi wuxuu ku yidhi war niman yahow awrkaygii idinkaa sheegay idinkaana dafiray waan idin ashkataynayaa qaadiga magaalada degan baan u tagayaa idinka soo ashkataynayaa kadibna waxay ku idhahdeen waa sax annaguna isagaabanu ku soconnaayana soo raac isku cag waa la israacay halkiibaa socodkii laga sii bilaabay qaadigii baa loo tegey qaadigii markii loo tegay waa rag safar dheer soo galay nin weliba muraadkiisii buu qaadigii u sheegay dabeetana qaadigii wuxuu yidhi horta waa soo daasheen daal iyo diif iyo daranyaa idinka muuqata iska nasta fadhiista wax cuna wax cabba kadib kolkaa nasataan ayaynu arrimihiinana geli doonaa qaadigu laba qodob buu sameeyey laba nin oo ka mid a khaadimiintiisii gaarka u ahayd ama adeegayaashiisii gaarka u ahaa ama raggii midiidinka u ahaa qaadiga shaqaalaha u ahaa bimacnaa wuxuu mid ka mida ku amray oo uu yidhi nimankaa sooriye la yaqaano oo wanaagsan u samee ka labaadna wuxuu ku yidhi adigu shaqo kale ha qabanina nimankaa afarta a dhex fadhiiso wax alliyaala wixii ay ku sheekaysanayaanee afkooda ka soo baxay iisoo xafido oo iisoo sheeg dabeetana nimankii cuntadii baa loo sameeyey si fiican baa loo baashiray waa la soo dhoweeyey marti waxaa laga dhigay aad iyo aad u sharaf iyo karaamo badan cuntadii markii loo soo dhigay ee cuntadii ay bilaabeen ayaa cabdilaahigii koowaad wuxuu yidhi canjeeradan aynu cunayno gabadh uur laa dubtay cabdilaahigii labaadna wuxuu yidhi hilibkan aynu cunaynaa hilib riyaad maahee waa hilib ey cabdilaahigii saddexaadna wuxuu yidhi qaadigu ibnu xalaalba maahee waa ibnu zilo allahu akbar saddexdii cabdilaahi ayuu mid waliba weedhaa ku tiraa ninkii khaadimka ahaa ee loo diray ee uu qaadigu u diray inuu nimankan dhex fadhiyo oo uu warka u keeno ayaa qaadigii u tagay isagoo aad u argagaxsan oo aad u layaabsan oo aan fariirsan wuxuu ku yidhi dabeete qaadigii qaadiyow nin wuxuu yidhi gabadh uur laa dubtay canjeerada nin kalena wuxuu yidhi hilibkaynu cunaynaaba maaha hilib riyaade waa hilib ay markuu intaa yidhi buu iska aamusay deedna qaadigii baa ku yidhi kii saddexaad muxuu yidhi markaasaa wuxuu ku yidhi kii saddexaad qaadi waxba muu odhana wuu iska aamusay kaasi maya buu yidhi ha sheegin runta ii sheeg haddii kala abaalkaagaan ku marin doona qaadigii markuu ninkii u cagajugleeyey ee u indhacadeeyey ayuu ninkii khaadimka ahaa runta sheeguu yidhi qaadi waxaan afka la soo marinayn buu yidhi ninkaasi ma odhan karayo wuxuu yidhi dhebuu yidhi oo ii sheeg waa innagii unay dabeete wuxuu yidhi ninkii qaadi wuxuu ku yidhi ninka saddexaadna qaadigu waa ibnu zine ee ibnu xalaalba ma aha okay waad mahadsan tahay buu yidhi qaadigii dabeetana qaadigii wuxuu u tegey gabadhii canjeerada dubtay markaasuu ku yidhi nayaahay bal ii warranoo ma uur baad leedahay markaasay tiri qaadi maaniga haa malihi uur iyo waxaan leeyahay toona ma jira haba yaraatee dabeetana qaadigii markuu cagaha dhulka uga qaaday ee uu u hanjabay indhaha u caddeeyey ayay runta u sheegtay tiri haa qaadi uur baan leeyahoo ninbay gacana igaga dhacday qaadi uur baan leeyahoo ninbay gacana igaga dhacday bimacnaa waa maxay hadalka waa la asturaa lama qaawiyo hadalku asturaaduu ku wanaagsan yahay wax weliba huga in la saaruu ku macaan yahay waxay u jeedaa gabadhu qaadi ninbaa i faraxumeeyey ninbaa si aan xalaal ahayn waxa weeye dee ilmahan ii uureeyey oo ilmahani maaha ilmo aabbaba ku abtirsanaya dee meher xalaala ilmo ku dhashay maaha wuu ka tegay oo taa wuu xaqiiqsaday inay gabadhu uur leedahay wuxuu u tegay haddana ninkii gowracay neefkii martida loo keenay hilibkiisa ee khaadimka ahaa waryaa
haraggii aad ka saartay neefkii aad u gowracday martida ii keen buuri ma ribuu ahaa mise lax markaasuu yidhi qaadi ribuu ahaa ii keen buuri haraggiisii dee ma harag buu hayaa dabeetana wuxuu yidhi qaadi dhegayso waxba kaa qarin maayo waa innagii markaan adhigii iyo xoolihii meelay joogaan gaari waaye ee aan maanta oo dhan socday martidiina ay inoo fadhido waxaan go'aansaday in nimanka aan faramadhnaan la dirina ay yar baan u qalay haraggiisiina waa kan waxbaa ka dhacay halkaa kaasina sidii ay sheegeen buu noqday laba sow maaha qodobkii saddexaad wuxuu u tegay qaadigii hooyadii way sheekaysteen wuxuu ku yidhi hooyey maanta waxaan kaaga fadhiyaa hooyaday macaanay maanta waxaan kaaga fadhiyaa inaad ii sheegto aabbahaygii runta ahaa inaad ii sheegtaan hooye kaaga fadhiyaa aabbahay kumuu ahaa yaa i dhalay ma ninkanaan magaciisa sitaa i dhalay mise nin kalaa i dhalay hooyo isagiiyo hooyadii way isku dul ooyeen waxbuu soo xasuusiyey islaantii waa hore tegay oo maanta da' dabeetana islaantii markii cabbaar la isla ooyey ee uu cabbaar islaantii hooyadii baadhbaadhay ee ay uu beerlaxawsaday qaadigii ayaa waxay tidhi islaantii hooyo ninkanaad magaciisa sidataa kuma dhaline nin kale ayay gacani igaga dhacdayoo ninkaasaa ku dhalay nin aan kanaad magaciisa sidata ahayn ayaa ku dhalay oo dabeeto kan oo i qabay ayuunbaa dee aan kugu moosay oo nidhi dee waa aabbaha qaadigiina sidii ay sheegeen nimankii ayuu noqday saddexdii masaleba qaadigii wuu soo xaqiijiyey kadib qaadigii wuxuu ku soo noqday saddexdii nin iyo ninkii martida ahaa ee halkii iska fadhiyey buu ku soo noqday markaasaa wuxuu yidhi qaadigii si uu u kala xukumo labadii masale ee ay nimankani u socdeen ee ahaa ninkan baadidoonka ah ee saddexda nin ashkataynaya kiiskiisa iyo saddexda nin ee dhaxalkii aabbahood yidhi mid baani dhexlayn oo labana way dhexlayaan dabeeta qaadigii wuxuu bilaabay kiiskii ninkii baadidoonka ahaayo wuxuu yidhi waar ninka yidhi hashuma ila aydow waa kee markaasuu yidhi waa aniga qaadi maxaad ku garatay buu ihi hal aanad aragay inay ila ayd waxaan ku gartay buu ihi qaadi neefkaa geela ihi dhirta uu daaqayo dhinac unbuu ka cunayo dhinaca isha u fayow dhinaceeda unbuu ka cunayo dhinaca kale waxba kamuu daaqaynin buu ihi hal dhan ayuunbuu dhirta ka cunayay oo uu ka daaqay markaa waxaan xaqiiqsaday inuu neefkaa geeli ilaa waa sax buuri kii labaad buuri ninka yidhi awrku ma dabala aayo maxaad ku ogaatay inuu awrkaasi dabala ah adigoon arag qaadi waxaan ku ogaaday buuri geelu sidiisaba dabadan yaree uu leeyahay marka uu saalaynayo geelu dabada wuu lulaa markaasay saaladii firidhaa laakiin hadduu neefku dabala yahay oo geelu uu dabala yahay saalada wuu tuumiyaa wuu tuulaa hal meel bay ku tuulantaa tuumin baa la ydhahdaa af soomaaliga saalada wuu tuumiyaa geelu haddii uu dabala yahay sidaasaan ku ogaaday buurkii labaadna waa laba ninkii saddexaad ee yidhi awrkaagu lug wax ma ka qabeeyo dhinac ma ka dhutinayey adigoo aan arag awrkaa maxaad ku ogaatay buuri inuu lug ka dhutinayo dhinac lug kala ah wuxuu yidhi qaadi waxaan ku ogaaday labada raad isku mid may ahayna dhan buu u dheelisanaa taasaan ku ogaaday buuri waa sax buuri isna saddexdii cabdilaahiba sidaasay uga jawaabeen saddexdii su-aalood ee ay yidhaahdeen ee ninka baadidoonka ay ku yidhaahdeen kadibna wuxuu yidhi qaadigii ninkan baadidoonka ahow nimankani way caddeeyeen awrkaagii inaanay arag laakiin calaamadihiisii bay sheegeen caqligooda wanaagsan iyo garashadoodaana u saamaxday sidaa daraaddeed nimankani awrkaagii may xadin manay qaadan manay arag laakiin waxay arkeen halkii uu maray iyo raadkiisii adiga waxba laguma hayo iska nabadgal buul oo iska tag ninkii baadidoonka ahaa isagoo faramadow oo aan waxba haynin ayuu halkaa ka dhaqaaqay waxaa isku soo haray qaadigii iyo saddexdii cabdilaahi wuxuu yidhi dabeeta qaadigii ninkay kumaa yidhi gabadhu waxay lahayd uur canjeerada inoo dubtay dabeetana cabdilaahigii warkaa sheegay baa yidhi qaadi anigaa idhiyo adigoo aan arag gabadha dubtay canjeerada maxaad ku garatay buuri inay gabadhaasi uur lahayd waxaan ku gartay buuri canjeerada dhinacna wuu buurnaa dhinacna qafiif buu ahaayo caadi buu ahaa markaa waxaan gartay buu yidhi inay gabadhu uur lahayd dhinacaa ay la gaari weyday in ay ku kala bixiso muxuu ahaayey in ay cajiinta ka kala bixiso
waxa weeye waa gabadh uur laho dumarka uur kale uunbaa aalaaba canjeeraday dubaan dhinacna buuran yahay dhinacna qafiif yaho gacantaa ka qabanaysa markay istiraahda sidaa ugu wareeji bahalka yar in lagu duba canjeerada ee maxaa la yidhaha cid waliba waxba u taqaanaay waayahay saasaan ku gartay buuri markaa inay gabadhu uur lahayd canjeeradii buu dhinacna buurnaa dhinacna qafiif buu ahaa okay kii labaad wuxuu weydiiyey qaadigii adiga oo aan arag hilibka aad cunaysaan aygii neefkii la gowracay wuxuu ahaa adiga oo aan arag maxaad ku garatay cadkan aad cunaysaa inuu cad ay yahay waxaan ku gartay buu uri qaadi aalaaba hilibka xoolaheennu waa laf iyo baruur iyo cad laakiin kani wuxuu ahaa buuri laf iyo cad iyo baruur haddaad aragta buuri cad ay baruurta hooseyso waxa weeye cadkaasi waa cad ay haddii laakiin uu cadku hooseeyo cadkaasi waa cad xoolaad sidaasaan ku gartay buuri inuu cadkani yahay ama hilibkani yahay hilib ay oo aanu ahayn hilib riyaad kii saddexaad baa soo haray waa ninkii yidhi waa ninkii wuxuu yidhi dabeetana qaadigii ninka saddexaadow sow adigu ma tihid ninka yidhi qaadigu waa ibnu zina maxaad ku ogaatay buuri inuu qaadigu ibnu zina yahay adigoo aan aabihii iyo hooyadii iyo taariikhdiisa midnahayna ma aan aqoon lahayn waxaan ku ogaaday buuri qaadi marti baanu ahayn dadka ashraafta ah ee sharafta leh ee ibnu xalaalka ku dhashay ee aabbahood iyo hooyadood meher xalaala iskaga dhaleen martidooda basaas uma soo diraan basaas baad noo soo dirtay oo tiri dhex fadhiisa martida wixii ay yidhaahdaanna ii soo sheeg sidaa daraaddeed baan ku ogaaday in uu qaadigu inaad tahay ibnu xalaal oo aanad ku dhalanin xalaale aad tahay ibnu zino dabeetana qaadigii wuxuu ugu jawaabay waa sax adiguna ibnu zinaad haddaba tahayoo ka aan dhaxalka waxba ku lahayn baa tahayoo dabeetana cabdilaahi baa booday oo yidhi sideen anigu ibnu zina ku ahay maxaad iigu caddaynaysaa waxaan kuugu caddaynayaa buuri ibnu zinuhu iyagunbaa is yaqaanade maadaama aad aniga i garatay anna adiga waanigaa ku gartay de halkaasay ayuu qaadigii ku caddeeyey cabdilaahigaa yidhi qaadigu waa ibnu zino inuu isaguna ibnu zino yahay oo aanu dhaxalka odayga waxba ku lahayn sheekadii saddexdii cabdilaahi halkaasay maanta inoogu dhammaatay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad baad u mahadsan tihiin